waxqabadkii waa kan ugaas Axmed Suleymaan oo ka hadlayo arrimaha bishaaro baandireed lagu xiray Soomaaliya ha noolaato Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga ugaas Axmed Suleymaan shida Axmed Ilxid ugaas Mihigaan maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo shirkeygan jaraa'id wuxuu daaran yahay inaan ka hadlo xadhigii bishaaro baanday maantana bishaaro cali baanday oo dalka soo gelaysay oo wax dembiya aan ka geysan dalkan oo odhan jirtay xukuumad la wada leeyahay raadinaya ama dowlad la wada leeyahay ayaa waxaa laga soo qabtay wajaale ciidankii soo qabtay way dhirbaaxay la dhaceen jilib bay la dhaceen qori dabadii bay la dhaceen dhaawac aad u culus baa la soo gaarsiiyey bishaaro cali baanday suxufiyadda madaxa bannaan annaga halkan ka caddaynayna taasina waxay qaranjab ku tahay xukuumadda Somaliland qarannimada in qof waxa weeye suxufiya oo madax bannaan oo waliba haweena in sidaa loo dilo loo jirdilo markii la keenay saldhiga dhexe Hargeysa waxa lagu xidhay qolkii aan dadka lagu xidhi jirin ee lagu ciqaabi jiray qofka dambiilaha qolkaas oo anigu aan aqaano oo aan waxa weeye qol madow ah oo aan suuli lahayn oo kutaan iyo lagu biiriyo iyo xaarka iyo kaadida lagu biiriyo oo qofka la ciqaabayo lagu xidho oo qolkaasi uu yahay mid aan waxa weeye qofku aanu neebsan karin oxygen fiican aan lahayn waa ciqaab lagu sii ciqaabayo qofkii isagoon maxkamadba la geenin ifka lagu sii ciqaabayo waxaad ogtihiin saldhigga gudihiisa in lagu dilay oo dhibaato badan ay ka soo gaadhay bishaaro cali baanday taana waanu cambaareynaa xadhigaana waxa ka mas'uula la isugu tagi maaye wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo awow u ah bishaaro cali baando waxa ka mas'uula madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi xadhiga la xidhay suxufiyadda madaxa bannaan ee bishaaro cali baando waxaan leeyahay si degdeg ah loo sii daayo si degdeg ah loo sii daayo baan ugu baaqaynaa xukuumadda Somaliland waxaan intaa ku darayaa ina keerelaya Sakariya Nuur Saajin ee yidhaaha irir Samaalo waxaan ahay irir Samaalo ka warrama ee yidhaaha waxaan ahay guddoomiyaha midnimada iyo isdhexgalka Soomaaliya iyo Somaliland waxaan leeyahay inankaa yari waxa weeye ma matalo irir Samaale hadduu irir Samaale waa shakhsi ka mida waxaan arkaya isagoo waraaq soo dhigo leeyahay afayeenka irir Samaalo ina yaro intuu yeedhay waxaan ku magacaabaya afayeenka irir Samaalo intuu waraaq soo sameeyay media soo dhigayo nin cid magacaabi karo irir Samaalo cid u magacaabi karana maaha irir Samaalena maaha waxa weeye nimanka irir Samaalo isku haysta ee ka doonaya inay ka dhigtaan wax idii ay leedahay irir Samaalo waa hayb waa dad ummadan waa ummadanoo sharaf leh waa ummadanoo waxa weeye meel ka soo jeeda waa irir Samaalo waa ummadda ugu badan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay inankaa yar midna dalladda guddoomiyaha dalladda maaha waxa laale wuxuu ka yahay ma jirto waxaanu ahayn oo kale waxa laale wuxuu irir Samaalo ka yoo xuminayna ma jiro waxa weeye ninkii qaybta saddexaad waa xadhiga bishaaro cali baando oo xidhay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland laguna jirdilay xadka Somaliland iyo Itoobiya ee wajaale haddana lagu jirdilay qol madow oo qolka xaarka iyo kaadida lagu biiriyana lagu xidhay magaalada Hargeysa saldhigga dhexe Hargeysa qolka muusijiisow in falowgiyo iyo sheer taba la siiyo in la sheer gareeyo falow la siiyo meel fog la gaarsiiyo oo kala shaqaysaan qofka wariyaha ee waxa fiican ka shaqeeya ee nabadgelyada ka shaqeeya ee horumarka ka shaqeeya waa in la taageeraa oo wax kale haddaydan ku tarayn waa inaad falow iyo leerta iyo sheerta siisaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu